Unit 8. What kind of food do you like? What kind of foods do you like? I like all kinds of foods. Really? Can you eat spicy food? I love spicy food. The hotter, the better. You are so lucky. Why am I lucky? It's terrible when I eat a hot pepper. Can you eat Thai or Mexican food? Yes, I can, but only if it's really bland. Do you eat out very often? Sometimes. Do you have a favorite restaurant? I do have a favorite vegetarian restaurant. Are you a vegetarian? Yes, I am. So you don't eat chicken or pork? No chicken, no pork, but I do eat fish. Are you vegetarian for health reasons or religious reasons? Mostly for health reasons. All this talk about food has made me hungry. Are you hungry? Yes, I am. Would you like to go to my favorite vegetarian restaurant? What is good there? Well, of course, the fresh vegetables are outstanding. Sounds delicious. Let's go. casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay unit 8 waa unitkii 8aad ama cutubkii 8aad ciwaankiisu waa what kind of food do you like cunto nooceeya ayaad jeceshahay what kind of food cunto nooceeya do you like ayaad jeceshahay eeba hadalka bilaabay what kind of foods do you like cuntooyin nooceeya jeceshahay I like waxaan jecelahay all kinds of foods dhammaan cuntooyinka oo dhan really xaqiiqdii can you eat miyaad cuni kartaa spicy food cunto basbaas leh really xaqiiqdii ama run ahaantii can you eat miyaad cuni kartaa spicy food cunto basbaas leh I love spicy food waan jecelahay cuntada basbaaska leh the hotter the better kulaylka wanaagsan I love waan jecelahay spicy food cuntada basbaaska leh the hotter the better kulaylka wanaagsan you are so lucky nasiib baad leedahay you are so lucky nasiib baad leedahay why am I lucky maxaa nasiibka u yeeshay why am I lucky maxaa nasiibka u yeeshay It's terrible waa mid dhibaato badan when I eat markaan cunayo a hot pepper basbaas kulul It's terrible waa mid dhibaato badan when I eat markaan cunayo a hot pepper basbaas kulul Do you eat Thai miyaad cuntaa cuntada Thailand or Mexican food ama cuntada Mexicaanka Do you eat miyaad cuntaa Thai cuntada Thailandka or Mexican food ama cuntada Mexicaanka Yes I can waan cuni karaa but laakiinse only keliyata if it's real bland keliyata haddii xaqiiqdii tahay mid jilicsan waan cuni karayaa Yes I can eat waan cuni karayaa but laakiinse only keliyata if it's really bland haddii xaqiiqdii tahay mid jilicsan Do eat out very often badanaa dibadda miyaad wax ka cuntaa Do eat out very often badanaa dibadda miyaad wax ka cuntaa Sometimes marmarka qaar Sometimes marmarka qaar Do you have a favorite restaurant miyaad leedahay hodheel aad xiiseyso oo aad wax ka cunto Do you have miyaad leedahay a favorite restaurant hodheel aad xiiseyso oo aad wax ka cunto I do have waxaan leeyahay favorite vegetarian restaurant hodheel aan xiiseeyo oo khudaartan ka cuno Are you vegetarian ma waxaad tahay khudaar cune Are you vegetarian ma waxaad tahay khudaar cune Vegetarian waxaa loo yaqaanaa qofka khudaarta kaliya ta cuna Yes I am waanahay
So sidaa daraaddeed you don't eat ma cuntid miyaa chicken hilib digaaga or pork ama hilib doofaarka. So sidaa daraaddeed you don't eat ma cuntid miyaa chicken hilib digaag or pork ama hilib doofaar. No chicken hilib digaag ma cuno, no pork hilib doofaarna ma cuno, but I do eat fish laakiin waxaan cunaa kalluunka. Are you a vegetarian? Khudaarta ma waxaad u cuntaa for health reasons sababo caafimaad or religious reasons mise sababo diimeed. Are you vegetarian? Khudaarta ma waxaad u cuntaa for health reasons sababo caafimaad or amase religious reasons sababo diimeed. Mostly badanaa for health reasons badanaa sababo caafimaad. All the talk hadalka dhammaantii about food ku saabsan cuntadu has made me aniga wuxuu iga dhigay hungry mid gaajoonaya. Are you hungry? Miyaad gaajoonaysaa? All the talk hadalka dhammaantii about food ku saabsan cuntadu has made me aniga wuxuu iga dhigay hungry mid gaajoonaya. Are you hungry? Miyaad gaajoonaysaa? Yes, I am. Haa, waan gaajoonaya. Would you like to go? Miyaad jeceshahay inayn tagno to my favorite vegetarian restaurant, hotelka ama maqaaxidan jecelahay ee khudaarta iibisa. What is good there? Halkaa maxaa ku wanaagsan in a can? Well hagaage, of course طبعا the fresh vegetables khudaarta cusub ama darayga ah are outstanding waa qaar wanaagsan. Well hagaage, of course طبعا the fresh vegetables khudaarta cusub ee darayga ah are waxa weeyaan outstanding waa mid aad u wanaagsan. It sounds waxay u muuqataa delicious mid dhadhan macaan. Let us go in a murray. It sounds waxay u muuqataa delicious mid dhadhan macaane. Let us go in a murray. Vocabulary study barashada kelmadaha waa kelmadaha aan ka soo ururin doono buuggeena ama casharkeena unitkan unit 8. The hotter the better kulaylka wanaagsan. The hotter the better kulaylka wanaagsan. Look like u eg. Look like u eg. Health reasons sababa caafimaad. Health reasons sababa caafimaad. Outstanding wanaagsan. Lucky nasiib. Bland jilicsan. Bland jilicsan. Religious reasons sababa diimeed. Religious reasons sababa diimeed. Delicious dhadhan macaan. Delicious dhadhan macaan. Pepper waa basbaaska ama qajiga. Favorite waa xiiso. Examples tusaalooyin. I love spicy food. Waan jecel cuntada basbaaska leh. The hotter the better kulaylka wanaagsan. You are so lucky. Nasiib baad leedahay. It's terrible waa mid dhibaato badan when I eat markaan cunayo a hot pepper basbaas kulul markaan cunayo mid dhibaato badan. Yes, I can waan awoodaa but laakiin only keliyata if it's really bland haddii xaqiiqdii tahay mid jilicsan. Do you have a favorite restaurant? Miyaad leedahay maqaaxi aad xiisayso ama hotel? Are you vegetarian? Khudaarta ma waxaad u cuntaa for health reasons sababo caafimaad or religious reasons mise sababo diimeed. Well hagaage, of course طبعا the fresh vegetables khudaarta cusub are outstanding waa mid wanaagsan. It sounds delicious waxay u muuqataa mid dhadhan macaan. Let us go in a murray.